Ra'iisul Wasaare Xamse oo maanta sameeyay arrin kale oo cajiib oo si weyn looga falceliyay. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre oo shalay ku soo laabtay Muqdisho kadib safarkiisa Laascaano ayaa sameeyay arrin kale oo cajiib ah lana xiriirta doorashooyinka qof iyo cod. Ra'iisul Wasaare Xamse ayaa maanta si lama filaan ah ku tagay xarunta ay ka socoto diiwaangelinta codbixiyayaasha degmada Shangani si uu u qiimeeyo sida ay wax u socdaan. Ra'iisul Wasaarahana ay la socdeen qaar ka mid ah golihiisa wasiirada ayaa ka soo muuqday safaf dhaadheer oo ay shacabku ku jiraan ololaha diiwaangelinta oo wada guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. Sidoo kale Ra'iisul Wasaarahan ayaa bogaadiyay sida ay wax u socdaan waxa uuna sheegay in dalku aado doorasho qof iyo cod ah awoodii shacabkuna ay dib u heleen. shalay waxaa sidoo kale isdiiwaangeliyay duqa magaalada Muqdisho Maxamed Axmed Maxamed Amiir mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. waxaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada ka codsanaynaa inay isdiiwaangeliyaan anigu wakaas oo markii ugu horeysay ee aan iska diiwaangeliyo doorasho qof iyo cod ayuu yiri gudoomiyaha Maxamed Axmed Amiir. talaabadan ayaa ku soo aadaysa xilli siyaasiyiinta mucaaradku ay meel adag ka taagan yihiin hanaanka doorashada qof iyo cod taasoo ku aadaysa madaxweyne Xasan Sheekh halkii mucaaradku arkaan mid laga leeyahay dana xukun dheeraysi. dhinaca kale falcelinta xoogan ayaa ka dhalatay talaabada uu qaaday Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya iyadoo su'aalo kala duwan ay keeneen shacabka Soomaaliyeed.